badan ka ogaanaynaa mashiinka shucaaca ee loo yaqaan ultrasound. mashiinka shucaaca ama kombiyuutarka caloosha waxa uu leeyahay mowjado dhawaaq oo isdaba joog ah. celcelis ahaan waxa uu ka sareeyaa xadka maqalka aadanaha. xadka maqalka aadanaha uu maqli karo cabir ahaan waxa ay tahay 20 kilo hektar ama 20,000 oo hektar. mashiinka shucaaca ultrasound cabirka codkiisa waxa uu ka sareeyaa 20 kilo hektar ilaa isaga oo gaaro 2 giga hektar. mashiinkan waxa soo ictiraaqay nin loo yaqaan Lazaro 1794 markii uu muujiyay in fadneerta ay ugaarsadaan in ay ku socoto dhawaaq maqal. Franz Galton 1893 waxa uu sameeyay foorida Galton oo ah foorida laga hagaajin karo soo saaridda firimbi kaasoo uu adeegsan jiray cabirka maqalka ee dadka iyo xayawaanada kale, isagoo oo muujiyay in xayawaanada badan ay maqli karaan dhawaaqyo ka sareeya maqalka tirada dadka. mashiinka shucaaca ultrasound waxaa loo isticmaalaa go'aanka gaarista caafimaadka xubnaha ku jira jirka aadanaha, waxaana lagu arki karaa mashiinkan xubnaha gudaha ku jira haddii ay wax iska bedelaan, sida haddii ay xubinta bararto ama ay biyo galaan. sidoo kale mashiinkan waxaa loo isticmaalaa ka warqabidda xaaladda cunuga weli aanan dhalan. haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay kombiyuutarka caloosha dhalaanka aan weli dhalan? saamaynta tiknoolajiyada ultrasound ayaa la cadeeyay in saameyn badan ay ku leedahay xubnaha taranka. Australia daraasad lagu sameeyay 1400 oo haween uur leh waxa ay muujisay in dumarkii lahaa 5 baaritaan oo kombiyuutarka caloosha bil kasta marka la barbar dhigo dumarkii lahaa hal mar oo kaliya uurka oo dhan waxa ay dhaleen dhammaan ilmo miisaankoodu hooseeyo. sidoo kale daraasadu waxa ay muujisay in dhalaanka uu ku dhaco kombiyuutarka caloosha inta badan gacanta bidix. daraasad kale ee lagu daabacay joornaalka ururka caafimaadka ee Canada ayaa muujisay in daraasad lagu sameeyay 72 caruur ah oo qaba xanuunka xagga hadalka ah. in ka badan 70% caruurtaas waxay la kulmeen mashiinka shucaaca si joogto ah inta ay uurka ku jireen. mahadsanidin.